Cumar bin Khattab ayaa seeftiisii u soo qaatay si uu nebiga u dilo. Wuxuu yimid guriga walaashiis, wuxuu uga soo jaray dharbaaxo. Warqaddii ayuu soo qaaday. Markii uu xogaa akhriyey ayuu ilmeeyey. Wuxuu eegay qofka qaraacaya albaabka, mise waa Cumar bin Khattab oo seeftiisii sita. Argagax iyo filanwaa ayay noqotay. Wuxuu yidhi ka fur, haddii uu shar doonayo seeftiisa ayaan ku dilaynaa. Waa xalqaddii 9aad barnaamijkeennii siiradda nebiga, naxariista nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, oo aynu ku eegi doonno soo islaamiddii Cumar bin Khattab iyo sidoo kaleba geerida xaaskii nebiga Khadiija bintu Khuwaylid iyo adeerkiis Abu Daalib. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar, halkanina waa Waaberi Media. ku soo dhowaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. ka waran haddaad heshid kombiyuutar bilaash ah, sidoo kalena qiimihii aad 2 koorso ku iibsan lahayd aad ku iibsatid 13 koorso. Waaberi Academy waxay kugu bishaaraynaysaa inta lagu jiro bisha Ramadaan inaad ku wada iibsan kartid 13 koorso oo ku jira website-keenna, oo ay ka mid yihiin Photoshop, Dropshipping, Premiere Pro, siraha muuqaal samaynta, CapCut, Graphic Design, Adobe Illustrator iyo koorsooyin kaleba hal qiime oo ah $34 oo keliya. Intaasi oo keliya maahan, balse sidoo kale jimce kasta inta lagu jiro bisha Ramadaan, mid ka mid ah ardayda ka faa'iidaysatay qiimo dhimistan ayaa ku guulaysan doona kombiyuutar. Iska diiwaan geli hadda WhatsApp lambarka ka muuqda shaashadda, sidoo kalena aad ka heli kartid kommentiga ugu horeeya. sidaynu ku soo aragnay xalqaddii hore, nebiga naxariista nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayaa saxaabadiisii amray inay u hijroodaan dhulka Xabasha si ay ula baxsadaan diintooda ugana fogaadaan dulmigii Quraysh. Laakiin Quraysh kama daba harin oo waxay uga daba tegeen dhulkii Xabasha iyagoo isku dayaya inay dib u soo celiyaan. Way ku soo guuldaraysteen inay saxaabadii tagtay soo celiyaan. Saxaabadii joogtay Maka ayay sidii hore iyo ka daranba u ciqaabeen. Waxaa dhacday in nebiga naxariista nabadgelyo korkiisa ha ahaatee uu Alle ka bariyey inuu Cumar bin Khattab ama Abalxakam ibnu Hishaam oo loo garan og yahay Abu Jahal uu midkood soo islaamo. Sababta uu nebigu Alle uga bariyey labadan nin oo xilligaas islaamka aad u necbaa ayaa ahayd in nebigu uu ka dhex arkayay geesinimo iyo saamayn sii xoojin karta muslimiinta. oo Abu Jahal wuxuu ahaa raggii ugu maqaamka sareeyey Quraysh, mana jiri jirin cid ka daba hadasha ama diidda talo uu keeno, taasoo ka dhigaysa haddii uu soo islaamo mid saamayn ku yeesha raggii kale ee Quraysheed, sidoo kalena ka hor istaagaysa inay ku dhiiradaan ciqaabidda saxaabada. Halka Cumar bin Khattab uu isaguna ahaa geesi hal adayg ku suntan, awoodna u leh inuu Quraysh ka hor istaago ciqaabidda muslimiinta. Alle subxaanahu wa tacaala ayaa u aqbalay ducadii nebiga naxariista nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, wuxuuna Alle soo hanuuniyey Cumar bin Khattab. qaabka uu Cumar bin Khattab ku soo galay islaamka waa qaab aad u yaab badan. Waxaa dhacday in habeennada ka mid ah uu go'aan ku gaaray inuu dilo nebiga si uu dacwaddiisa u soo afjaro. Isagoo wata seeftiisii ayuu waddada kula kulmay nin ka soo jeeda reer la odhan jiray Banu Zuhra. Ninkan ayaa ku yidhi, inta aadan aadin Maxamed gurigaaga ka bilow. Cumar oo fahmi waayey waxa uu ka wado ayuu ku yidhi ninkii, walaasha Faaduma bintu Khattab iyo saygeeduba waxay qaateen diinta Maxamed. Cumar oo ay fidanwaa ku noqotay ayaa aad u carooday, wuxuuna u jahaystay gurigii walaashiis. Xoog ayuu ku soo galay. Markaasuu arkay walaashiis iyo ninkeedii oo warqad akhrinaya. Markii ay arkeen Cumar ayay warqaddii qariyeen. Markaasuu ku yidhi, waxaan aan maqlay ma runba? Horaantii hore waxay isku dayeen inay inkiraan oo ay ka qariyaan islaamnimadooda cabsi ay ka qabaan aawadeed. Way murmeen. Kadibna Cumar oo caraysan ayaa dharbaxo uga soo jaray walaashiis. Dharbaxadan awooddeeda ayaa gaarsiisnayd heer uu dhiig ka yimaado. Walaashiis oo u adkaysatay gacanqaadka walaalkeed ayaa ku mayal adeegtay diinteeda, kuna tiri, waxa aad rabtid samay. waan islaamnay, waxaana rumaynay Alle iyo rasuulkiisaba. Cumar ayaa markii uu arkay dhiigga ka socda walaashiis iyo sidoo kaleba sida ay diinteeda ugu adkaysanayso, soo jilcay. Markaasuu ku yidhi, bal ii dhiib warqaddan aad akhrinayseen, aan eegay waxa ku qoran. Waxay ku tiri, maya, kuma dhiibi karno. waxaad tahay gaal, mana taabto warqaddan qof aan daahir ahayn. Cumar ayaa soo weysa qaatay,
kadibna warqaddii ayuu bilaabay inuu akhriyo. waxaa ku qornaa aayado ka mid a suuradda daaha. cumar ayaa markii uu xoogaa akhriyey bilaabay inuu ilmeeyo, kadibna wuxuu yidhi, maxaa ka qurxoon hadalkan? ii geeya maxamed. wuxuu aaday gurigii arqam ee aynu soo sheegnay inuu gole u ahaa muslimiinta. albaabka ayuu soo qaraacay. saxaabadii ayaa eegtay qofka albaabka taagan, mise waa cumar binu khadaab oo seeftiisii xambaarsan. way baqeen oo waxay moodeen inuu u socdo dilkooda. oo sidaynu soo sheegnay, cumar wuxuu ahaa nin aad looga baqo. laakiin xamse oo joogay golaha ayaa ku yidhi, fura albaabka. hadduu khayr rabo wuu naga helayaa, haddii uu shar doonayana seeftiisa ayaan ku dilaynaa. sidii ayaa looga furay albaabka. cumar ayaa markii uu soo galay ku yidhi nebiga, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, nebigii allow, waxaan kugu imid inaan rumeeyo alle iyo rasuulkiisaba. hadalkan ayay aad ugu farxeen nebiga iyo saxaabadiisii. markiiba waxay bilaabeen inay takbiirtaan, heer takbiirtooda laga maqlay guryihii u dhowaa oo dhan. kadib cumar ayaa yidhi, miyaynaan xaq ku sugnayn? waxaa lagu yidhi haa. markaasuu yidhi, haddaba maxaan u qarsanaynaa islaamkeenna? kadib waxay isku qaybiyeen muslimiintii laba saf. saf uu hoggaaminayo cumar binu khadaab iyo saf uu horkacayo xamsa. waxay tegeen kacbada oo ay markii ugu horaysay si bareer ah oo loo wada jeedo ugu tukadeen. soo islaamidda cumar ayaana dhiiranaan hor leh gelisay saxaabadii nebiga, naxariista nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. quraysh ayaa garowsatay inaysan dacwadda nebiga sidan ku joojin karayn, oo maalin kasta halkii ay diintan ka tegi lahaayeen waxaaba ku soo biiraya dad cusub oo hor leh. waxay isugu yimaadeen kalfadhi hor leh sidii xal kale ay u keeni lahaayeen. ugu dambayn waxay soo jeediyeen qorshe cusub oo lagu cadaadinayo nebiga iyo inta rumaysayba. qorshahan ayaa ahaa in go'doon la geliyo nebi maxamed iyo reerkiisii bani cabdimanaaf. yoolkoodu wuxuu ahaa in si wada jir ah reer bani haashim iyo reer bani cabdimudallib loo geliyo go'doon, iyadoon loo kala saarayn gaal iyo muslim. waxaa la qoray warqad ama digreeto lagu xusay qodobo kala ah: lagama guursan karo, loomana guurin karo, wax lagama iibin karo, lagamana iibsan karo, lalama hadli karo, golayaashooda lama dhex geli karo, guryaheenna ma geli karaan, lalamana hadli karo, lagama aqbali karo reer bani haashim iyo reer bani mudallib wax sulxi ama nabadgelyo ah, loomana jixinjixi karo. halka mar ee digreetadan la burin karana waa marka ay soo dhiibaan maxamed si loo dilo. sidii ayay odayaashii quraysheed ku wada ansixiyeen digreetadan, waxaana halka shardi ee lagu joojin karo amaradan laga dhigay in la soo dhiibo nebi maxamed, naxariista nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. kadib si warqaddan muqaddas ay uga dhigaan, waxay sureen kacbada. sidaas ayuuna ugu bilowday reer bani haashim iyo reer bani mudallib go'doon arxan daran oo wax kasta laga jartay. go'doonkan ayaa socday 3 sano oo xiriir ah. gaajada, carruurta iyo haweenkii reerkan ay dareemayeen waxaa laga maqli jiray guryihii ku hareeraysnaa. dabcan wax kasta oo dhacay, abudaalib oo ahaa adeerka nebiga iyo reerkii uu hoggaanka u hayeyba ma oggolaan in nebiga naxariista nabadgelyo korkiisa ha ahaatee wax loo geysto ama naftiisa halis la geliyo. intii ay quraysh u oggolaan lahaayeen dilidda nebigana waxay door bideen inay go'doonkan galaan. abudaalib ayaa gaaray heer uu ku dhaho nebiga, naxariista nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, habeenkii seexo furaashkayga si aan laguu shirqoolin. waxaa la ogeysiinayaa bulshaweynta Soomaaliyeed ciddii u baahan in waalidkood looga soo gudo acmaasha cimrada inta lagu jiro bisha fadliga badan ee Ramadaanka, in hawshaas ay u qabanayaan culimo ku sugan magaalada Makka oo aqoon u leh axkaamta xajka iyo cimrada. sidoo kale si toos ah ayay kula socodsiinayaan intay hawsha cimrada ku jiraan, muuqaalana way kaaga soo duubayaan. haddaba waxay faahfaahin ah kala xidhiidh WhatsApp lambarkan ka muuqda shaashadda. waxaa dhacday in Alle uu u waxyooday nebi maxamed, naxariista nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, in warqaddii la suray kacbada uu aboor cunay. kadibna nebiga ayaa u tegey adeerkiis abudaalib una sheegay. abudaalib ayaa isaguna dhankiisa u tegey odayadii quraysheed kuna yidhi, warqaddii aad surteen kacbada wuxuu maxamed ii sheegay inuu aboor cunay. haddii hadalkaasi uu run noqdana ay ku khasban yihiin inay go'doonka qaadaan. warqaddaasi aboorku cunayna ay tahay dhambaal loo dirayo odayadii quraysheed
maysan rumaysan hadalkii abudaalib oo markiiba waxay u jihaysteen dhankii kacbada si ay u soo hubiyaan warqaddii ay sureen. way tegeen, mise waa sidii la sheegay, oo warqaddii oo dhan waxaa cunay aboor marka laga yimaado in yar oo ay ku qoran tahay bismikallaahum oo uusan aboorku taaban. odayadii quraysheed ayaa amray in la qaado go'doonka reer banu haashim iyo reer bani mudallibna ay dib ugu soo noqdaan qabaa'ilkii quraysheed. kadib markii ay go'doonkan ka soo baxeen, nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee iyo saxaabadiisii waxay ku war heleen laba dhacdo oo murugo ku reebtay rasuulka sallallahu calayhi wasallam. waxaa geeriyooday 1 sano gudihii adeerkii nebiga abudaalib oo ahaa gaashaan ka hortaagnaa quraysh, sidoo kalena uu ka helay jacayl xaddhaaf ah iyo waalidnimo aad u baaxad weyn. oo waxaynu ogeyn in abudaalib uu nebiga kafaalo qaaday kadib markii uu awoowihiis dhintay isaga oo da'yar. sidoo kale sannadkan waxaa geeriyootay xaaskii nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ee khadiija bintu khuwaylid oo ahayd qofkii ugu horeeyey ee rumeeya nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, markastana garab iyo hoy u ahayd. sannadkan ayaa loogu magacdaray sannadkii murugada, waxaana dhacday in markii abudaalib ay u timid geeridu uu u soo galay nebigu naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, waxaa dul joogay abujahal iyo cabdilaahi binu abi umaya. markaas ayuu nebigu ku yidhi, adeer waxaad dhahdaa ilaah ma jiro alle mooyaane, si aan kuugu doodo alle agtiisa. markaas ayay abujahal iyo cabdilaahi binu abi umaya ku dhaheen, abudaalibow ma waxaad rabtaa inaad ka tegtid diintii aabbaha cabdimudallib? raggan ayaa hadalkooda ku celcelinayay ilaa markii dambe abudaalib uu yidhi hadalkiisii ugu dambeeyey oo ahaa, waxaan ku suganahay diintii cabdimudallib. kadib geerida abudaalib, quraysh ayaa bilowday inay si daran u soo weerarto nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, oo markii hore waxay ka baqi jireen abudaalib oo uu ahaa gaashaan ka hortaagan quraysh. nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa go'aansaday inuu aado daa'if si uu dadkii degganaa islaamka ugu yeedho. haddaba muxuu kala soo kulmay? waxaynu ku ogaan doonnaa xalqaddeenna soo socota. haddii ay ku qancisay xalqaddan, ha ilaawin inaad leeg inoo saartid lana wadaagtid asxaabtaada. haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo ka mid noqo bahweynta nagu xidhan. mahadsanidin.